wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Saleebaan Warsame Guuleed maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynaba Cuqaal xildhibaano siyaasiyiin iyo wax garad kale ayaa habeenkii xalay ahaa hoteelka Isha Caynaba kaga qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyay laguna mahadnaqay qaybihi kala duwan bulshada ku dhaqan gobolka Saraar sida muggal uga qayb qaatay dabaaldega xus kasta ee 10 May munaasabadan oo sidoo kale lagu soo bandhigay gabayo suugaan iyo ciyaaro kala duwan ayaa waxa ugu horreynba ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Caynaba gudoomiyaasha xaafadaha kala duwan iyo waliba madaxda ururada haweenka ee madashan ka soo qayb galay iyo sidoo kale isuduwayaal ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee gobolka Saraar waxaana si weyn ugu mahadnaqeen cid kasta oo ka soo qayb qaadatay xuska 18 May hadalkan waxaan halkan uga mahadnaqaynaa wasiirka cadaaladda oo soo qabanqaabiyay xafladan suu inoogu mahadnaqo waxa weeye qabanqaabadii iyo dabaaldegii maanta aynu samaynay wasiirkana isagana waynu mahadnaqaynaa aad iyo aad baad wasiir u mahadsantahay barasaabka gobolka iyo madaxda gobolka oo lafdhabar noo ahayd in hawshani qabsoonto iyagana dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo aan ku celinayaa dhammaan bulshada halka fadhida gudoomiyayaasha aad iyo aad baan idinkana idinku mahadnaqaynaa maalintan qaran ee 18 May ee inagu qaaliga sida wanaagsan ee maanta u muusheen shucuurtiina waxaan hambalyo taalamida runtii ahaantii u soo jeedinayaa shacabka balaaran ee gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynaba oo hawshan bulshadeedu ayna u kala hadhin mudano iyo marwooyin hawsha adag aynu soo haynay ee qof walba waajibka ku ah waxay muujiseen dadaal fara badan ka sokow dadkii ka soo shaqeeyay xalfadii sanad guuradii 11aad ee maalinta qarannimada Soomaaliland ee aynu gooni isku taagnay aan kala soo noqonnay walaaladeen Soomaaliya waxaan leeyahay dadkii ka soo shaqeeyay waa mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baan ugu hambalyeynaya waxaan u hambalyeynaya barasaabka gobolka Saraar oo ah barasaab aynaba casharo fara badan baray sida iskaa wax u qabso waad ogaadeen dugsiga ayaan la primary wuxuu fadhiyay banaan deyrku ka dhisay waynu garanaynaa demala ayaan loo arkay Caynaba dhama way garanaysaa haddana iskaa wax u qabso waxa sameysay Caynaba laakiin yaa baray madaxweyne barasaabka ayaa baray una mahad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan kale oo halkan ka salaamaya oo aan ku soo dhaweynaya oo aan u mahadnaqaya bulshada iyo madaxdayada gobolka Saraar wasiirka cadaaladda ee noo soo sadcaalay ee caawa xalfadan halkan noogu qabtay nagala soo qayb galay afarta dhugtay hal waa dhambaal koonfuri wacdiga ma dhageysataa fariimaha dhabta ma ka dhagalaadahay dadka dhoohan ee soo dhoofayow maantana dhukulo ma dhibad wada dhinacaagii baad dhulkii soo gubtay dhasheedii cunaay ma waxaad digtaan iska dhaafay baad dib u dhirinaysaa afarta dhugtay hal waa dhambaal dhulka iyaga ninkii dhinac haysta ee dhayal moodayow waa dhaxalawow soo yaal dhitaa dhidibkii loo taagay bisinka ku dheehana dhidibkii loo taagay dahaba ku dhaabana dhidibkii loo taagay akhyaar baa wada dhammayd dadkii Soomaaliland way dabaaldegeen dadkii Soomaaliland way ducaynayeen waxaan leeyahay maanta waa maalin qaran waa maalin weyn kuwa Soomaaliland waxaan hambalyo u jeedinayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad bay maanta ugu weyntahay Soomaaliland waayo waxaynu soo maray waynu garanaynaayo dad badanna way u dhinteen dad badanna way u dhaawacmeen mahadnaq ilaahay ka sokow waxaan anaguna mahad ballaaran u soo jeedinaynaa madaxdayada oo wasiirku hogaaminayo ilaa heer gobol ilaa heer degmo oo maanta nagu maamusay inay nooga mahad celiyaan dabaaldegii 18 May oo aanan wali horeba u arag waxa mahadsanidna yiraahda annaguna waxaan leenahay Allah idin guuleeyo Allah idin barakeeyo aadna wada mahadsantihiin waxaan halkan ka salaamayaa
maayarka barasaabka taliyaha qaybta iyo dhammaan xildhibaanada halkan fadhiya maxaan idhaahdaa bahweynta odayaasha ururada bulshada maanta waxaynu u soconaynay oo aynu isugu soo baxnay sanad guuradii 31aad ee ka soo wareegtay intii aynu imika dalka soo galay waa ogtiinoo dalkan waa loo dhintay rag baa u dhintay rag baa u dheelmaday rag baa u dhintay rag baa intaa u soconaya oo ugu horeeya madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi damayntiina wasiirka wasaaradda cadaaladda mudane Saleebaan Warsame Guuleed barasaabka gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed maayirka magaalada Caynaba iyo mas'uuliyiin kale oo madashaasi ka hadlay ayaa si mug iyo miisaan leh ugu mahadnaqay qaybihii kala duwanaa bulshada ku dhaqan gobolka Saraar iyagu banaanbaxa cajiibka ka dhigay gudaha magaalada Caynaba eraygu waxa weeye darigii hore ee Soomaaliya ka tirsanay waxa la ilaalin jiray jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya la ilaalin jiray halkaasaynu marka hore isku ogeyd inagu waynu ka tagnay waxaynu noqonnay jamhuuriyadda Soomaaliland iyaguna way ka tageen oo waxay noqdeen Puntland Jubaland Koonfur Galbeed federal muxuu ahaayay jamhuuriyadda federaalka waxa la iyana way ka tageen inana waynu ka tagnay Soomaaliyadii magacii hore jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya waa lagu kala tagay maxay inoo daba socdaan dadweynaha gobolka Saraar waxa lagu yaqaanaa maalmaha shucuurta leh ee ka mid tahay sanad guurada la xusayo 18 May inay u soo banaan baxaan si mug iyo miisaan leh oo shacairteeda ka muuqato wadaniyadeeda ka muuqato qarannimadeeda ka muuqato booliyowgii iyo jacaylkii halgankii loo soo maray qarankan iyo jamhuuriyadana ay ka muuqato aad iyo aad baad u mahadsantihiin baan idin leeyahay laakiin heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaanteenba waynu u tashanay waynu shirnay maanta markii la kala dareeray sidaasaynu ku heshiinay inaynu xafladii soo socotay diyaar garowgii soo socday muddada doora ee maantana sidii la yaabka lahayd loo soo baxay ee goobtii aynu maanta ku shiraynay ina qaadi weyday oo dadkii ay u suurtagali weyday inay hangarkii iyo geedhkii wada galaan ayay ka dhalatay inaynu caawa mar labaad inaynu dadkii ugu yeedhno xafladdan habeennimo oo aan keligeen ahayn ee ka socota madaxtooyada qaranka xarumaha gobollada xarumaha degmooyinka taas oo meel walba ka socota oo lagu dabageynayo xaflad bannaanbixii iyo maritaankii maanta la maray in sidaasoo kale habeennimadana laga qaybgeliyo haddii ilaahay ka dhigona ayaanu leenahay sidii mas-uuliyiintii iga horeyba sheegtay ama aynu maantaba u sheegnay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin haldoorka kala duwan haldoorka kala duwan ee ilaa mas-uuliyiin leh ee ilaa urura leh ee ilaa ciidamo leh ilaa dhalinyaro leh ilaa saxaafad leh ee bisha u taagnaa ee maanta iyo xalay 24 saacna u taagnaa hadeerna ay saacadu 12kii marayso mar labaad arintaasi waxaan leenahay waa mahadsantihiin jazakallahu khayran jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba